jaamacadda Badr International University ee magaalada Hargeysa ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10 bisha 9aad ku dhawaaqday daafurka kuliyad cusub oo ugub ku ah jaamacadaha dalka waana kuliyadda barashada culumta Quraanka Kariimka hadaba madashii kuliyadan xadhiga lagaga jarayay ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda culimada dalka mas'uuliyiinta jamciyaadka Quraanka Kariimka iyo macallimiin iyo arday tiradoodu aad u badnayd waxaana ugu horeynba munaasabada ka hadlay faahfaahin ka bixiyay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badr ahna dhinka kuliyadda culumta shariicada islaamka Sheikh Abi Ali Maxamed iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadda Badr Professor Mubarak Ibrahim R in badan ayaa waxa weeye jaamacadda ay la soo xidhiidheen marka madaariska Quraanka Kariimka maamulayaashooda ay cid gacanta ku haysaa in la helo waxa weeye kuliyad arinta u taagan oo Quraanka waxa weeye Kariimka lagu barto jaamacaddu markay eegtay waxa weeye waxay go'aansatay marka in la furo waayo baahi badan baa ka jira wadanka ka jirta madaaris badan oo quraan baa jira arday badan oo soo baxaysa jirta quraankii dhameynaysa markaan eegnay taladii culimadu ay soo jeediyeen Sheikh Tirri iyo culimo kale badan waxaan go'aansanay markaa in jaamacadda ay furto kuliyadda Quraanka Kariimka oo waxa weeye manhajkeeda bay diyaarisay macallimiinta bay diyaarisay waxay ku tala gashay markaa inay baahida awdo waayo wadankeena sidaynu ognahay ma jirto kuliyad u taagan qaybta oo Quraanka iyo culumtiisa lagu barto waanu haysanaa marka culimadii dhigilayd runtii waa noo farxad maanta inaan runtii halkan ku daafurno kuliyadda Quraanka jaamacadda Badr inta badan waxaan isku daynaa kuliyadaha hortaan furnaa waa kuliyad aan ka baaran degnay la faguray la xaqiijiyay in dadku baahi u qabaan la xaqiijiyay macallimiintu ku haboona in la helayo la xaqiijiyay standardkii caalamka in la buuxin karo marka run ahaantii kuliyadaha horan furnay oo dhanba waa kuliyada jaamacadda runtii hadda meel fiican ay ka gaadhay kuliyadda Quraanka maanta aynu furayno runtii fikradeeda waxa iska lahaa Sheikh Maxamed Umar Dir sheekha runtii nagu dhiirigeliyay kadibna anagu runtii waxaanu la tashanay dadkii ay khuseysay aday noqotay muassasaadka Quraanka ka shaqeeya iyo macallimiintaba kadib runtii markii aadaan u baarnay laga baaran degay ayay noqotay kuliyadaas inay maanta kuliyad aad loogu baahan yahay waan runtii diyaarinay macallimiintii muxuu ahaayay dhigi lahaa Sheikh Maxamed Sheikh Umar Diri Sheikh Dr. Cabdiqani Badr iyo Dr. Ciise Maxamuud iyo mas'uuliyiin madasha lagu soo casuumay ayaa iyaguna jaamacadda Badr ku amaanay waxqabadka fiican ay ku soo kordhisay bulshada waxaana ay ka warameen qiimaha uu leeyahay barashada Quraanka Kariimka iyagoo macallimiintii munaasabadani ka soo qayb gashay dardaaran uga soo jeediyay sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen kuliyadan cusub ee u adeegaysa kalaamka Ilaahay iyo cilmigiisa in halkan xariga aynu kaga goynayno oo la furayo oo jaamacaddu inoo furaysa Badr Ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala waa fursad aynu ku helay wadankeeni iyada oo aanad meel dheer u safrin waynu ognay maantana inaad jaamacadda dibadda tagto safarka iyo fiisihii sidoo adkaaday iyo lacagta la bixiyo faraheeda aynu ogsoonahay adigoo gurigaagii jooga adigoo shaqadaadii wata oo madarisadii ama maxadkii ama malcaamadii dhigaya in lagu waafajiyo waqtigii kugu haboonaa oo jimcada iyo khamiista ah adigoo shantaadii cisho kala shaqaynaya oo waliba dakaatiro xula lagugu yeedho oo mucallimiina iyo manhaj haboon waa wax Ilaahay loogu mahadnaqa subxaanahu wa ta'aala Quraanku waa mucjiz icjaaskiisuna meel badan buu galaa haday tahay jaanibka luqawiga haday tahay jaanibka cilmiga haday tahay jaanibka tashriiciga iyo haday tahay jaanibka khabariga afarta dhinac buu Quraanka cilmigiisu galay icjaaskiisu u galaa inta wax rajaynaya in lagu qaadan doono insha Allah ta'ala jaamacadda lagu baran doono jaamacadda Badr al-Caalamiya oo rag badan halkan fadhiya ay wax ka barteen iskuulada kala duwan jooga markasta waxay beegsataa baahida bulshada inay ka jawaabto
haddii ay tahay kulliyadihii hore u furnaa hadday tahay shareecada iyo hadday tarbiyada iyo hadday bangiyada islaamka iyo kulliyadaha kaleba tanina waa fursad xilligeegii timiday. فمن فضل الله عز وجل أن طالب العلم يجمع الآن بين العلم الشرعي وبين حفظ العلوم من حيث الدراسة المسجدية التي تؤهل طالب العلم لجمع كمية كبيرة من العلم، يجمع بين ذلك وبين الدراسة الأكاديمية من خلال فتح هذه الكلية المباركة، فيجتمع خير إلى خير. فهذه فرصة عظيمة لطلاب العلم نهنئهم بها ونبارك لهم بأن من الله عز وجل بفتح هذه الكلية المباركة كلية القرآن الكريم في جامعة بدر. عدي كليتنا وكالمشاركة سنة وها مهم إنه يوقف فائدته جوانب تخصص كالحريرة، وهذا مثلا سيدان أغنى قراءات كقفك ضلبة وها مهم إنه حفظيه شاطبية ذا يدر ذا هذه طبعا كقراءة وصغرى ودونيه كبرى هدو دونينا طيبة النشر. جامعاتك أما كلياتك وحي كساعدان قفك متونتاس مديرو كوبان أساقون دريمين إنو حفديو. jaamacadda Badr oo muddo kooban jirtay ayaa maamulkoodu waxa uu ku guuleystay inay jaamacadda Badr ay noqoto jaamacadaha dalka ugu waxbarashada wanaagsan, taasoo bulshada ku soo kordhisay aqoon dibadda laga doonan jiray. kuliyadan cusubina ay ka mid noqonayso mid ka mid ah faa'iidooyinka ay jaamacadda Badr dalka ay ku soo kordhisay, isla markaana uu ardaygu ka heli karo shahaado caalamiya. Wahib Sariyaan, warbaahinta nolosha Islaamka, Hargeysa.